kulankan oo loogu mahadcelinayay cid kasta oo ka soo qayb qaadatay dhismaha xarunta MSH-ka deegaanka Sacdheer ayaa lagu qabtay isla gudaha deegaanka Sacdheer iyadoo ay ka soo qayb galeen inta badan bulshada deegaanka Sacdheer ugu horeyn Qola Yuusuf Nuur ayaa ka warbixiyay xarunta MSH-ka deegaanka Sacdheer wuxuuna sheegay in dhismo kordhinta MSH-ka ay qayb libaax leh ka qaateen dhalinyaro ka soo jeeda deegaanadan oo ku dhaqan dalka Mareykanka una sheegay inay soo direen lacag dhan $1970 Qola waxa kale oo ka mahadceliyay dadka reer Sacdheer oo ka bixiyay lacag dhan $1370 oo lagu qabtay dhismaha MSH-ka kulankan maanta ayaa lagu soo bandhigay lacag kale oo gaaraysa $1380 oo soo direen gabdhaha deegaanadan oo ku nool cariga Ingiriiska waxayna soo wakiisheen hooyo Xaliimo Xuseen Carab isla markaana waxay ku wareejiyeen gudiga gacanta ku haysta MSH-ka gudoomiyaha ururka Daryeel Bush ayaa ka qayb qaata horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka ayaa dhankooda uga mahadceliyay dadkii ka soo qayb qaatay dhismaha MSH-ka dhakhtarka Sacdheer oo gabagaba oo hoolkii iyo qolkii weynaa lagu talagalay waa qaadkan la dhigo runtii dad fara badan ay iska gaashadeen waxyaalo fara badan iyo waqti iyo dhaqaale in la geliyo ay ka muuqato runtii deegaankan in fara badan baan anagu shaqeynay waxyaalo fara badan oo xoogaala oo aan ognahay baa jirta dhakhtarkan iyo sidoo ahaan jira waan ka warhaynaa in fara badan ka urur ahaan anoo ka hadlay ururka daryeelka bulshada haddana howlo shaqaalkan u joogna in fara badan haddii ay noqoto dhakhtarka iyo waxbarashada wax fara badan baan ku ogeyn waxaan ognahay deegaanka iyo howlihiisa iyo siday soo ahaan jireen waxaa noo muuqata maanta inuu deegaanku isku tashtay waxaa noo muuqata deegaanku inuu horumar ku tallaabsaday waxaa noo muuqata dhanka waxbarashada iyo dhanka caafimaadka labadaba in horumar laga tallaabsaday maadaama muddo 2 sanadood aan xogtooda la soconay iyo systemka aan ururahaan ku shaqeynayna waxaa noo muuqanaysa maanta iyo horumarka iyo howluhu intay leeyihiin runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka deegaanka oo fahmay qofku marka uu isagu wax keensado oo inuu wax qaban karo waxaana kaloo goobta ka hadlay waxgaradka deegaanka waxayna ku baaqeen in laga qayb qaato dhismaha MSH-ka waxaa kaloo codsi u direen in baahi weyn ay u qabaan ambalaas degdeg oo howlaha degdega lagu soo qabto Sacdheer siyaasiisana 2000 ayay ahayd arladakan iyo dhulka uu ku fadhiyana saacid ahaan aniga ayaa u bixiyay oo tabar ahaan Ilaahay u bixiyay qaybta tan labada qolkii haddii aan ku jirno dhinaca kale waxa ka ah hool haddii 9 mitir iyo 7 mitir ah oo dhismihiisii ay taagan yihiin oo jingadii saaran tahay oo salaaxii wax ka harsan yihiin oo caqdigi ay ka harsan yihiin oo qabiyo ah oo qashiyaad fara badan oo hadeer yaani la leeyahay ay jirto marka deegaan ahaan yaanihi iyo wax qabad ahaan si fiican ayay hawshu xaggan loogu hargashay saacidooyin xagga dibadda looga yimid warkiibiyaha waxa ka maqan suuqyada sida caaqilku sheegay waxa ka maqan qalabayntii dawadii baa ka maqan bahda caafimaadka waxaan qoliyahan hay'adaha maxalliga iyo kuwa international waxaan ku codsanaynaa inay naga soo caawiyaan wixii ay nagu korin karaan inay nagu kordhiyaan annagu fadhiisan mayno intaa haddana anaga qabsanay wixii kale aan qabsan karnaa haddii ilaahay noo qabsanaynaa qoliyaha hay'adaha maxalliga iyo kuwa international waxaan leenahay waxaad naga soo caawin kartaa naga soo caawiya wabillahi tawfiiq karnaa inaan ku darno wabillahi tawfiiq rabbil aalamiin waxaan salaamayaa inaad jirin nolol ma jirto waxaa anaga noo ah isbatal meesha qolkan yaad aragtaan iyo ka aan hadeer samaysanay hadeer qabyada naga wax badan way ka maqan yihiin intii taarkayada hadeer waan kicinay barkadii baa ka maqan biyo inuu MSH-ka xafidan yahay oo waxa soo gala iyo waxa ku jira ay xafidan yihiin MSH-ka qodobka ugu adag waxa weeye MSH-kaas inuu deer helo inuu dhameystirmo MSH-ku kulligii anagu deegaan ahaan waxaan diyaar u nahay wixiina qabta ee aanu gelin karno inaanu gelino dadka kalena waxaanu ka codsanaynaa wixii ay ku darsan karaan waa meel dadkoo dhan u dhaxaysa ummadda degan ee ku abtirsata deegaamadan waa meel ay wada leeyihiin wixii ay ku dari karaan inay ku daraan ee karaankooda waxa ay ku darsadeen waa waxa ay aakhiro ku darsadeen wixii wax ku darsadeen waxaanu leenahay jazaakumullahu alkhayr wal jazaa ilaahay idinka abaal mariyo wixii hadeer u diyaarsanaa iyaga laftirkooda waa sidoo kale baahida koobaad hadalka in la badiyo ma wacnay baahida koobaad waxaan rabnaa MSH-ka caafimaadka in loo dhameystiro wixii anagu aan awoodo aan hadda ururinay iyo wixii kale aan ku dari Maxamed
axmed jaamac telefishinka caalamiga ee kalsan magaalada laascaanood.